أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلابنيا آيات 16 oo suuratul qiyaama kamida. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga soo waramayay ahwaalul qiyaama amba ahwaalul qiyaama, qiyaamada shidadeeda dhacaysa ayaa Ilaahay nooga soo waramayay suuradan aynu soo bilownay casharkeena hore. marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga soo waramay insaanka jawaarixdiisu amba xubnihiisu inay ku marxaati kacayaan. cudurdaarka soo keeno oo waxyaabahaas ay sheegayaan jawaarixdiisu oo xataa beeniyane laga aqbali maayo. halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa wuxuu leeyahay la tuharrikha dhaqdhaqaajinin bihi ay biqiraa'ati alqur'aani quraanka akhrintiisa lisaanaka carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajinin litacjala bihi inaad u degdegto dhah Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka markaas aad u degdegtid. inna calaynaa waxaa korkayna hoo nasaaran annaga jamcahu quraanka kulmintiisa sadrigaaga aan ku kulmino iyo wa qur'aanahu akhrintiisa dhah Ilaahay aanu kugu akhrino. fa idaa waqtigii qara'naahu aanu akhrino oo waxa weeye malaku jibriil quraanka uu ku akhriyo sayidka maxamedka ahu, fattabic raac qur'aanahu akhrintiisa raac oo marka hore dhageyso ka bacdina waxa weeye quraanka akhri. thumma inna calaynaa annaga waxaa korkayna ahu Ilaahay bayaanahu quraanka cadeyntiisa inaanu ku fahamsiino ayaa maaragtay korkayna ah weeye. marka hadda aayadahan waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam quraanka markii loo waxyoonayo oo malakul jibriil oo ku kor akhrinayo qabla intuusan faaruqin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qirada uu ka daba wadi jiray asagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam isdhahayay wax ka fakanin, taasoo markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam cusri ku ahaaday. ilaahay oo rasuulkiisa u naxariis badan ayaa waxa uu leeyahay waxba hays dhibina leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam quraanka waxa way iska dhageyso markuu jibriil faaruqo soo akhri inaan anagu ku akhrisiino oo waxba ka lumin anaga ina saaran tahay. taasay aheeda marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala la tuharrikha dhaqdhaqaajinin bihi ay biqiraa'ati alqur'aani quraanka akhrintiisa waa qabla firaaqi jibriil minhu, inta jibriil faaruqin ka hor lisaanaka carabkaaga ku dhaqdhaqaajinin oo ugu dhaqdhaqaajinaysa markaas litacjala bihi inaad u degdegtid adigoo markaas ka baqaaya quraanku inuu ka fakado. litacjala bihi inaad u degdegtid weeye khawfa an yanfalita minka adoo ka baqaaya inuu ka fakado. inna calaynaa annaga korkaynay tawla Ilaahay subhanahu wa ta'ala jamcahu quraanka kulmintiisa, quraanka inaanu xabadkaaga ku kulmino annaga ina saaran tahay, iyo wa qur'aanahu akhrintiisa dhah Ilaahay inaad akhriso oo waxa weeye quraanka qiradiisa aan lisaankaaga ku socodsiino.
فإذا وقتي قرأناه آنو أخرنه هذا وحوي ملك الجبريل أيا إلهي واسطك لكن قرآنك رب العزة وكإيمان يا فإذا وقتي قرأناه آنو أخرنه جبريل أو كو أخريه أو جبريل مركز وحوي مركز رسولك عليه السلام قرآنك هو معلن وهاي فاتبع راعون إلهي قرآنه أخرنتيس راعون إلهي oo waxa weeye marka hore dhageyso qiradiisa ka bacdina markaas akhri weeye saahuru soo marnane fakana sallallahu alayhi wasallam yastami'u wa dhageysanay suma yaqra'u markaas uu akhrinay markii waxa weeye oo sidaas ilaahay u dhahay ka bacdi rasuulku waa dhageysan jiray ka bacdi uu akhrinay waxbana markaas kama lumeynin laakiin qofka caadiga ah waxaan bahadii quraanka loo meerihayo ama markaas oo dhigaayo oo loox ku dhigaayo sida ardada oo kale waa ka daba ordaya maxaa yeelay wixii waxa dhici karta inay ka lumaan laakiin rasuulka kaleey salaatu salaam ilaahi baa ku sugaaya lisaankiisa iyo sadrigiisa quraanka ilaahi ila allah ku sugaaya فإذا قرأناه مركان أخرناه إلهي فاتبع راع قرآنه وأخرنتيسا ثم إن علينا أنك كوركينا أيتها بيانه بيان كذا ماشا وحي كودا حال كودا التفهيم كاليري وحي مركاسي waxa weeye ka iskaal galo macaanidiisa inaan ku fahamsiinana annaga ina saaranta saasa marka tan la leeyahay maxay markii hore ilaahay wuxuu soo dhahay subhanahu inna alayna jam'u wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu ilaahay marka wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala thumma inna alayna annaga korkayna tay bayaanuhu ilaahay bayaankiisa aan ku bayaano ku fahamsiino weey هذا مركا وحوي حان هوري ودخ جرنay casharkeena horo qiyaamadii iyo markaasi ahwaasheedii baa laga waramayay intaan markaasoo meeshaan munaasab u noqotayna ilaahay halkaan uu noo soo galiyay marka hadda waxa lagu laabanayaa qiyaamadii iyo ahwaasheedii iyo nimankii kufaarta ahay sidii loola khidaabayo adduunyada jeclaay ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala kalla daanu waxay way marka adaatu istiftaax way saasay ka dhigan tahay bimaana ala oo kala way kala marna waan soo marina saasay ahaaday maxaa yeelay waxa la fiirinayaa markaasi siyaaq ama munaasabada la joogo ayaa la fiirinayaa kala ala hooy ayuu ilaahay adaatu tanbiih noqonay marka baraaruge bala tuhibuna waxa jicishino ilaahay kufaaray al aajilata tandegdegayso adduunyada وتذرون وادنا كتغيسان او دحي الله الاخره اخرته ايات كتغيسان الهي وحو ليه سبحانه وتعالى dadka dhama la khidabaya laakiin hadda sida qaalibka waa dadka adduunyada kaliya jecel oo aakhirada ka tagay sida kufaarta iyo maartay way raaca ilaahay marka wuxuu dhahay bal tuhibuna amasa bal yuhibbuna ya'na wal akhira bal yuhibbuna wixii jecelyihiin oo ilaahay kuwaas العاجلة تندقدقيس عاجلة وحا laga wadaa adduunyada laga wadaa waad aragtay hadda waxa way kufaar iyo maartay wixii baraadkooda qaada waxa la jecel yahay adduunyada kaliya la jecel yahay aakhiradiina waa laga tagay bal yuhibbuna العاجلة tawda ilaahi midaan degdegaysay jecel mar walba adduunyada ka hadlaayaan qorshahooda dhan adduunyo way wax markaas aakhira ah ay leeyihiin lama arko ويذرون الآخرة آخرة وكتجاي آخرة كتجديد محيطة وهو فلا يعملون لها عمل أصلا ما قف قدو آخرة أو سنعمل فلين وضاعد إلهي أساس مين قف آخرة كتجاي ووربا أنا كاين كتجد ساسوي آخرة مركل لجاره أو ساسة ويأدوني ذي أي كدورتين إلهي سبحانه وتعالى وحى أو نقنايا حالة الناس ayaa ilaahay nooga waramaya subhanahu wa ta'ala wujuhu wajiyalo ilaahay yooma idin maalintaas ay fi yawmil qiyaamati laga wada qiyaamada maalinteeda wujuhu wajiyalo ilaahay yooma idin maalintaas naadiratun ti iftiinaysa way waxa way hasanatun muli'atun wa wujuhul mu'minina alayhi dadka mu'miniinta wujuhdooda ayaa nuuraysa wujuhu wajiyalo ilaahay yooma idin maalintaas yawmul qiyaamah ناظرة واتي افتيني سود إلهي إلى ربها ربك إذا حقيسة ناظرة واتي في رنيس
ilaahay subxaanahu watacaala ay aakhiro ayay ku arkayaan oo aayaddan waxay caddaynaysaa in rabbulciza markaasi dadka mu'miniinta qiyaamo ay ku arkayaanoo ilaahay xijaabka isaga faydaayo laakiin waa ru'yo oo min gayri kayfin wanxisaarin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala kayfiyadiisa aysan maaragtay ogaa karin oo aysan haddana xuduud aysan kusoo koobi karin ilaahay subxaanahu watacaala xad lagu kooba ma laha laakiin mu'miniinta waxaa loogu raaxaynayaa allah subxaanahu watacaala inay arkaan waa wujuuhdaas iftiinaysa markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisow dha ilaahay naadiratun tii fiirinaysa weeye rabbigeeda ayay fiirinaysaa xadiiska saxiixayna markaas oo satarawna rabbakum nabigu u dhahay calayhi salaatu wasalaam rabbigiina aad arki doontiin maalinta qiyaamo sida waxaa weeye dayaxan oo 14 aad u aragtaanu dhahay laa tulaamuuna fii ru'yatii ilaahay aragtidiisana isku cariirimaysaanoo meeshaan anaa ka fiirsaaya halkaa iga wareeg inta iga riix aan ana fiirsadee ma ahane dayaxaa sida loo arkaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala loo arkayaa waxaana nas cad ay ku tahay qur-aanka iyo axaadiistaba ilaahay subxaanahu watacaala ru'yadiisa maalinta qiyaamo inay sugnaanayso marka taas waxa weeye waa dadka mu'miniinta wa wujuuhun wejiyaalow dhah ilaahay yooma idin maalintaas oo yowmulqiyaamo ah baasiratun tii weji tubaysa weeye kaalixatun waa mid diiran weeye shadiidat alcabuus cabuusnimadeeda markaasi weji tubkeeduna markaasi ou shadiid ou daran yahay maxaa yeele wejigoodu wuxuu markaasi saas ou cabuus la yahay waxay arkayaan hortooda shadaa'idii faraha badneeday iyo naarti iyo wax kasta wixii loo yaboohi jiray oo haddana waxa weeye ay beeni jireen ayay hortooda ka arkayaan marka wejigu saas weeye wejigu sidiisaba wax mandarahoo fiican hadduu waayo saasuu noqonayaa markaasaa ilaahay wuxuu dhahay wujuuhun wejiyaalo yooma idin maalintaas baasiratun ow dha ilaahay waa tii weji tubaysa waa mid diiran weeye tadunnu waxay yaqiininaya hadda dhanniga meeshaan yaqiin waayo maxaa yeele qiyaamo markii la joogo yaqiin baa faraha lagu hayaa mala ma ahan markaasi tadunnuda saasaa loo fasirayaa waxaana markaasi caddaynaya siyaaqa tadunnu waxay yaqiininaysaa an yufcala bihaa in lagu falaayo wujuuhdaas weeye faaqiratun musiibo dhabarka jibisow dha ilaahay tadunnu waxay yaqiininaysaa an yufcala bihaa in lagu falaayo faaqiratun mid dhabarka goysa musiibo dhabarka daahiyo weeye markaasi oo markaasi cadiimaa oo tugsuru jebinaysa faqaara dahri dhabarka lafdhabarka ka jebaysa musiibo lafdhabarka ka jibisa ayaa maalintaasuu la kulmaaya taasuu markaasuu yaqiininayaa ilaa waa u jeedaa insaanka markaa adduunyada uu ka tegaayo sida xaaladiisu ay tahay ayaa ilaahay noogaga warramayaa kallaa alaa hooy ayuu dha ilaahay idaa waqtigii balaqati taraaqiya balaqati nafsu weeye markaasi nafti ay gaartow dha ilaahay ataraaqiya kalxamaha ay soo gaarto oo waqiila la yidhaahdo dadkii markaasi qofkaas sakaraadaya ku hareeraysnaay weeye mankeebaa raaqin ku tufaaya waryaa ku tufaaya si loo ilaahay loo shaafiyo wadanna isaguna uu yaqiiniyo qofkan waxa weeye naftiisu ay halkaas gaartay annahu maaragtay ay maa nasala calayhi waxa ku degay alfiraaqu faaruqida inay tahay oo adduunyo markaas uu faaruqayo adduunyo aysan meesha u aalin waltafat isaaqu dhudhunkuna ou dunmow dha ilaahay bisaaqi dhudhunka kale u dunmo oo waxa weye dhudhumankiisu markaasi ay isu dunmaan maxaa yeele waxa weye qofku markuu sakaraadayo nafta laga qaadayo dhudhumankiisaa isu dunmaayo cinda almowd weeye amase waxa weye shiddatu firaaqi dunya adduunyada faaruqideeda shiddada ay leedahay ayaa dhudhumankiisu isu dunmaaya iyo aakhirada uu qaabilayo xaaladda markaasi waxa weeye insaanku adduunyada uga baxaayo iyo awood yarida markaasi insaanka kale oo markaasi asagu ag jooga oon waxba aana u qaba karin ayaa ilaahay na tusaaya awoodda inuu alla iska leeyahay subxaanahu watacaala kallaa alaa hooy ayuu dheh ilaahay idaa waqtigii balaqatir nafsu naftaas soo qadaraysaa nafti ay gaartow dheh ilaahay ataraaqiya kalxamaha ay gaarto naftaan waxaa la yidhi ama mu'minad ha noqoto ama kaafira ha noqoto
معناه وحوي نفقادي دي مركي قفكان وجودا قلوي وقت الموت أو وقيل اللي يراهده واسيدا دقنكا وحوي ددك هدي ساسيين waxaa leeyahay waryaha lagu tufo halla sacab saaro halla ileelo waxa dadku waxay sameeyaan waqiila la yiraaho ilaahi ay qaala man hawlahu dadku ku hareereysnay oo sakaraadiha ayaa dhahaya mankii baa raaqan ku tufaay wala tuftiisa alla aqbala tuf waxba tarimaysa mar hadii malakumud uu yimaado si loo shaafiyo wadanna isaguna uu yaqiiniyo qofkan waxa weey lagu soo xaadiro muxtadarka ruuxiisu halkan ay soo gaartay annahu kaasu al-firaaqu faaruqati inuu yahay adduunyo uu faaruqay maxaa yeelay qofku meesha soo kale markuu gaaro naftiisa waa ka quusanaya inuu adduunyo ka tagayane waa ogaanaya halkaasi u soo joogsanaysa waltafati saaqu yawd ilaahi dhudhunka oo u dunmo bisaaqi dhudhunka kale oo dhudhumanka isku duuduubmaan ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa ta'ala ila rabbika rabbigaaga inti ka ah خضابا مركاسا لو ملعسدي ايا يوم اذن مالنتاسو ديلaahi المساق كحينت ايتا انسانو ربي حقيسا ايا لا يسو كحينيا الى ربك ربيغا حقيسا ايا يوم اذن مالنتاس المساق كحينت ايتا ماشي الهي سبحانه وتعالى ان لو geeyo uu tala galay halkaasa loo geynaya ho waxa weeye naftaada la qaadaya hadhowna waa la is soo bixinaya waa la is xisaabaya weey ogow insaan oo saasuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala maalintaas waa la iska xaynaya qofkii markaas hada wanaag ka horeyne waxaan wixii ka horeeyo musiibaha iyo shadaa'idii ayuu u tagayaa qofkii waxa weeye wanaag ka horeeyo adduunyada amal falane khayr ayuu u tagayaa qof walbana intoosan naftu aysan ka bixin sida xadiis saxiixa soo aroortay ayaa waxa la tusaya maqaamkiisa ama makaankiisa imma ila aljannati wa imma ila an-naar way marka waltafat as-saaqu bis-saaqi saas weeyo culummaduna way ka warameeno iltasaq saaqul insaani way markaas insaanka markaas dhudhunkiisa uu ku dhago midka kale intood cinda mawti bil ukhra imaam qataada waxa uu dhahay soo arki meesho dhahay markii mawdka qofka uu dhawaado inuu lugaha isku garaacayo lugaha isku tumaayo saas weeyo dhahay saciid ibn musayyibna waxa uu dhahay waa insaanka labadiisa dhudhun markay isu dunmaan oo waxa weeye waxa laga wada hore kafanta markii la gelsho waa ka qofka la isku duwaayo markaas waxa weeye dhudhumankiisa markaas la isku qabanayo taasa laga wada hawdha zayd ibn aslamna waxa uu dhahay waa saaqul mayd bi saaqil kafan waxa weeye maydki dhudhunkiisi ayaa waxa weeye kafanti dhudhunkeedi ayaa ku dhagaaya kulli intaas oo dhan wada saxiix weeye marka hada insaanki kaafirka ah Allah wuxuu dhahay fala saddaqa ma uusan rumaynin insaanka saas loo kaxeeyay gaar ahaan waxa laga waramaya kaafirka fala saddaqa ma uusan rumaynin wala sallamana uusan dukanow ilaahi adduunyada markuu joogay fala saddaqa ma uusan rumaynin oo ilaahi subhanahu wa ta'ala ma uusan rumaynin ilaahi rusushiisa ma uusan rumaynin waa insaanki hadda waxa laga wadaa insaanki laga soo waramayo ayahsabu al-insanu alla najmaa idaamu ilaahi u dhahay sadaqadaana tasdiiqa laga keenay oo quraanki ma rumaynin iyo rasuulkii la soo diray alayhi salatu wasalaam weey wala sallamana dukano salaad sharciga ahayd ma uusan dukanin saas weey marka sidaas asagoo ah ayaa markaas waxa weeye mawdku ku soo xaadiray markaas uu saasoo ku tagay walaakin kalkeeda ayuu ilaahay kadaba waa beeniyay quraanki wa tawalla waana jeesto iimaankii uu ka jeestay walaakin kadaba waa beeniyay ilaahay quraanki wa tawalla waana jeestay suma bacdeeda haba waa tagow ilaahay adduunyada markuu joogay ila ahlkiisa yatamadda xaalu yaki isqaad qaadaya hada insaan waqtiga nabiga jiray ayaa laga xarad lahaa leeyahay laakiin waxa weeye kaafiro dhan ayaa loola jeedaa suma dhahaba ila ahli wa hikaaya ama kana yatacalaqu bihi hada kaafirka hadda la sheega wuxuu ku tacalluq jira waay adduunyada markuu joogay maxaa yeelay markii wax loo sheego waxaas oo ilaahay rumay leeyahay qiyaama jirta leeyahay wax badana ka gali ma jirin asoo kibirsan ayuu iska tagayay gurigiisa iska tagayay waa ka soo noqonayay
وحدنا هو كلا هي مجرته وعبادات سمي مهيني إلهي نروي صلاة ندك مهيني مركزون إلهي سبحانه وتعالى ثم ذهب واتجا يوم إلهي سبحانه وتعالى وحو صمي جرى إلهي كورما إلى أهل غير كيس وتجي يتمضى حاله يا كيس قاد شافير تمايه يتبختر في مشيته أسوء إسلاء عجبا يسلوين ضدوا حاجر ضاعد إلهي أنا هينين وربي كفرتي هدنا وحوي إسلوين وإسلا عمل وينو كبر إيا بلاي أي كجر تاجرة كاس آساد لغا هدلوها يا إلهي وحوله سبحانه وتعالى أولى لك والتفاض وحالة من الأسد غيبية وي كلمة أولى نوحوي اسمه فعل وي لام تنوى لتبيين وي معناه وحال لغا وده هكو حرير سدانو وقورتها كو قرانا وحا أتكهانيسو أولى لك أذيك أيا كو هبون وكو أولى وي مركاسي وحا أتكهانيسو أولى لك أذيك أيا كو هبون وحا أتكهانيسو هدنا إلهي وحوله سبحانه وتعالى فأولى أذيك كو هبونو إلهي فأولى أذا كو هبون تيهوري تأكيدو تاي ثم أولى لك أذيك أيا كو هبون وحا أتكهانيسو فأولى أذيك كو هبون وعوام كاسوا لسكو تأكيدين إياه إلهي وحوله سبحانه وتعالى أولى لك أما سوحوي والدعاء عليه waxaad kahanayso qoorta Allah ku galiyo way waxaad kahanayso oo cadaabki iyo waxaasa qoorta Allah ku galiyo way saasa la leeyahay markaas awla laka way adiga ayaa ku haboon way ama se waxaad kahanayso qoorta lagu galiyo way awla laka adiga ayaa markaas ku haboon waxaad kahanayso suma awla laka mid walba mid ay ka dameyso ta'kiidkaas waciidka hore waa ka sii adag yahay suma awla laka adaa ku haboon weeye amba qoorta la ku galiyo waxaad kaanayso fa awla adaa ku haboon weeye midaan dambe ta'kiid waay markaas iyadoo ta'kiid ay sii noqonaysa saasa markaas la leeyahay waxaad kaanayso qoorta Allah ku gelsho oo markaas cadaabki ah weeye ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala ayahsabu al-insanu insaanku uma waxa u maleynaya an yutraka in laga tagay sudan bilaash looga tagay insaanka markii la abuuray inuu la iska abuuro sida xayawaanka la iska sii deeyay oo waxa weeye wax uu cunayo wax dhibaayo sidaas oo kaliya uu yahay sida gaalada taada waxay haysa lama arko inay waxna cunaan waxna ay dhabaan taas kaliya weey markaas wixii ilaahay u suubiyo aawe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa tan soo marjarna insaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala jinniga insi waxa loo abuuray cibaada loo abuuray oo inay adooman yihiin inay muujiyaan adoonnimada ilaahay adoo ka dhigta inay qaataan raba marka waxa u maleynaya in bilaash la isaga abuuro iska joogaayo on hada waxa weeye oo iska wax iska nool noqonayo xayawaan iska yahay hada waa u badan tahay insaan badana saas oo wax markaas laga rabo iyo walajeedadii loo abuuray iyo xuquuqda ilaahay ku leeyahay ma fiiraayo markaas uu ilaahay ayahsabu al-insanu insaanku ma waxa u maleynaya an yutraka in laga tagay sudan bilaash looga tagay oo waxa weeye sharaa'ic aan lagu kalifin yowsa u maleysaas weeye ha fiiriyo macnaha meesha uu ka yimid asalkiisa ilaahay wuxuu dhahay alam yakum yowsan haynin ay kaana wa ahaada weeye nutfatan mani alam yakum sawmaha nutfatan anduf oo min maniyin mani xageeda ka aatay manigaasoo yumna la daadinayo raximka lagu daadinayo bal qofka waxa weeye meesha asalkiisa uu ka mid fiiri ilaahay sida maartay meesha uu ka soo waday ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaas ka soo waday ilaahiga subhanahu awoodaas leh oo halkaas ka keenay xuquuq buu ku leeyahay waxa weeye istidlaal ay u tahay loo daliishanaa ilaahay qowlkiisa balaa qaadirina ala annu sawiya bananu isfahamtana waa li taqriir ha weeye alam yakum yowsan ahayn wa ahaaday nutfatan anduufu ilaahi oo min maniin mani xageeda ka aatay manigaasoo tumla ama yumna la daadinayo mani oo raximka haweenka lagu daadinayo halkaas lagama abuurino meeshaas ma fiisha weeye suma kaana manigi miyowsan ahaano ilaahi maniga hadana waxa weeye waxa sameeynaya tadawur suma kaana manigi miyowsan ahaano calaqatan xinjirow ilaahi afartan ka markay u dhaxayso
فخلق دبدنا إلهي سو ما أبورن إنسان كود إلهي مركي هيرركاس أو صومري أو مر أو نطفة أو هاي مر وحوي علاقة وياهي مر ملغة وياهي بقولي أفرت بقولي لواتن مع الموت ويوافر بلاده كبعد روح اللي جلنا يا مركاسون إلهي فخلق سو إلهي ما أبورن إنسان كون إلهي منيدا سو كما أبورن فسوى دبدنا سو الله مصمن وإلهي واسم سبحانه وتعالى أعلاديسي حبنهيسي سيدا لو قرحيو مناسب لا يسقط قبل فيره فجعل سو الله ميلين منهم منيغا صوت إلهي أو على قدر نقضي كبعد وحوي مارتيا ملغذا النقضي أو قطعة لحم الزوجين فجعل الله كي يلو الإلهي منهم منيغا سيرر كمري الزوجين لبضي السنفي أيو كي أما فجعل لفت كذا خلق الله قدقه فجعل الله وأبوري منه أيو الإلهي سبحانه وتعالى منيغا سيرر كاسمري الزوجين لبضي السنفي يو الإلهي الذكر كي لبا إيه والأنثى تيدي دقيت ومنيدي وحال لغا أبوري لبدا سا لغا أبوري فجعل الله وحو كي يلو الإلهي منه منيغي الزوجين لبضي السنفي يو الإلهي الذكر كي لبا إيه والأنثى تيدي دقيت معناها وحوي لبدا النوع وي لبدا النوع با أو رق إيه الضمرة منيداس أيا لغا أبوري هذا لا ماركا قف جونية خاص كم أهن واحد لا بدأ فرد كليه هذا خاص إنه كم أهنا ليري أو حال غير ناقط مركاسي إنه مركاسي أي حنبارته أما يور بحسه لب أي لشوا ولب منطانة ويل لشوا أما لب قبضات أي لشوا أما بالعكس مركاسي ويل يقبر أي لشوا أو منطانة الذكر كي لبا يول أساتي لتجدون إلهي أليس صوم أهنو الإلهي ذلك كاس ذلك الفعال لهذه الأشياء أو الله أليس صوم ذلك أرنتاس الله سميه بقادر كي كرو الإلهي على أن يحيي إنه صون ولا الموتى هو دنتي أليس صوم أهنو الإلهي ذلك الفعال لهذه الأشياء أشياء ذاس أو إنسان كلا أبوري الله كري أو فلي بقادر كي كرو صومه على أن يحيي إنه نولايو الموتى كوا دنتي أو صون نولايو هيركاس دي إلهي إنسانك أو كصوب بالله أو نطفداس أو كصوب بالله هيركاس صوم مري إنسان كامل إلهي أو كدغاي الله أساس كيال إنسانك مركو دنتو سو أود أملها الله سداس يالي إنه صون نولايو بل هدي لا فيرجو نولاين تاب سهلن با أو قيام الله صوبش أسنا تاسو إنكرسين حق مركاس عقلك لكن الله waa isugu mid marka insaanku markuu dib isugu noqdo oo wixii markaas uu soo maray dib ugu noqdo wuxuu ogaanayaa ilaahay awoodiisa ogaanayaa biqaadir kii kara ala ay xiyal mawta mawdiyash inuu soo bala haawi waxa la wariye rasuulkeena kaleey salaam markuu akhriyo aayadatan waxa uu dhihi jiray subhanaka allahumma bala ba'da sakta ladifa raba ina tirahay subhanaka allahumma bala Abdullah ibn Abbas waxa uu dhahay qofkii akhriya sabbih isma rabbika al-a'la إمام هالنقض أما غير كيسه هيري هذا مركاسي سبحان ربي الأعلى قفك آخريو إذن كمذا لا أقسم بيوم القيامة أو آخر كذا قارنه هيرا سبحانك اللهم بلا إمام هالنقض أما غير كيسوي أبي هريرة وحا لقوري وحودا رسولك وحودا عليه الصلاة والسلام قفك آخريا والتين والزيتون أو مركاسي قار آخر كذا أليس الله بأحكم الحاكمين هيرا هذا بلا وأنا على ذلك من الشاهدين لو رحال الرباه قفك آخر سورة المرسلات أو قال فبأي حديث بعده يؤمنون بعد سقط الذي آمنا بالله إنه إله الله رباه أصوى أرنتاس مركاسي قرعية هل كان سبحانه وقال هذا مركاسي سورة دمارة تضباطا يشنات هل كان حينك قلنا سورة تضباطا إلحاد أصيح شهد 10 كين انت سوك إجهي والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.